maalin dhaweed waxaa la wareejinayaa gabadh leh ilmihii aan xaaraanta ku dhalay xaaraantii aan ka ganacsanay aan ku dhalay baan xuquuq u rabaa kuwa waxay damceen inay cudur daaraan oo waxay dhaheen gabadhu waxay jilaysay oo fasiraysay musalsal ayada kamay wadin nafteeda cudurun aqbaxu min dam waa balaayo ka daran saa waxayba noo sheegeen inay caruurtanadii u soo wadaan inay saqajaannimada daawadaan naag dhan oo soo istaagtay oo leh oona la xishoon xataa wejigeedii baa muuqdo ay leedahay ilmihii aan xaaraanta ku dhalay aan ku shaqaysanay xaaraanta laftirkeeda lacagta ku helayay baan xuquuq u rabaa baa kugu dhacday oo ilaahay ku soo hanuuniyo ilaahay hadduu hidaayo kugu talagalo ma wax baa hadhay ma xishood baa hadhay waa ilmo garacnimo ay ku dhashay garacnimo kaliya tama ahe waa garacnimo ay lacag ku daydaysay oo hunguri ka raadinaysay waxaa ka daran midda sidaa loo wareejinay ayadana soo qaaday heesta ay meel walba isla ruuxaysa ee jinsiga aan afkay kama soo bixin karo gabdhaha yar yartay da'yarta way wada arkeen haweenka waaweyn maanta baraha bulshada qayb kamid ah ku jirto way wada ogyihiin gabdhahaasi rag bay la dhasheen xafaday ka dhasheen qoysas bay ka dhasheen adeero iyo waxay leedahay dad ka dambeeyo rag kaloo ka daran baa jiro caadaystay ayagana oo dayuusiin oonan dhaamin dumarka inay dumarka qaawanidooda ka sheekaystaan oo ka ganacsadaan baraha bulshada ku jira maanta oo dhan waxay falanqeeyaan waa cawro naageed waxa ay ka hadlayaanna waa cawrada waa raggii ka dhiidhiyi lahaa ee damiirka isku yeeli lahaa waxaa ka sii daran gabdhaheena jidhkooda inay ice cream ku gateen waa qaamada ugu daran ee xaaliyan taagan hooyooyinkii Soomaaliyeed meel ay ku maqan yihiin garan mayno iyo inay waxa raalli ka yihiin oo la ogyihiin oo gabdhahooda u sacabatumayaan iyo inay khabar mooga tahay hooyada oo loo cudur daari oo gabadheedii meel ay ku maqan tahay ay warheen laba gooraba cudur daar hooyo aan gabadheeda ka warheenin ma laha gabdhihii yaryara jidhkoodii waxay ku gadaneen mujarrad ice cream marka warraba ma aha in yaro isku timid waxay ka gadanayso ninka ice cream-ka gadaya wuxuu leeyahay ma taqaanaa na waxaan ku soo dhigayaa baraha oo dhan YouTube-kaygaan ku gelinayaa Instagram-kaygaan ku gelinayaa TikTok-kaygaan ku dhigayaa buu leeyahay raalli baan ku ahay leedahay subxaanallah macaasidii mid bay dhashay jidhkeedii dhanna ee qaaliga ahaa islaamnimadeedii iyo diinteedii waxay ku gadatay inay dabada u ruuxdo ninka xunka ay ice cream-ka siinayo bal ku goodo annaga ice cream badan ku gadayna maadnoo imaatay hadday baahi ku hayso baahida jidhkaadi aad ugu bedelatay ice cream maxay tahay waxaa la mid ah gabdhaha TikTok ayagana dabada wareejinaya lacag baan ku helnaa anu waxaan garan laahay qabiilkan lagu faana markii la raadinayo xilal la isku dilaa la isku laayo ee dumarkii cirdigii sharafta ilaalinayeen muxuu yahay qabiilkan la sheeganayo ee lagu tiirsan yahay ee gabadha ice cream-ka jidhkeeda ku gadanaysa qaban la muxuu yahay maxay tahay dhidhilaanta maxay tahay damiir xumada inta leeg ee Soomaali dhaxtaal rag baa difaacayo rag baa iska dhigay inay wanaageeda ka shaqeynayaan rag baa le waad gabadha uga hadlaysa xuriyadeeda haysata gabadha Soomaaliyeed goorma xuriyad la'aan ahayd gabadha Soomaaliyeed goorma xuquuq la'aan ahayd soo ilaahay mucazzaz mukarrama kama dhigin bacdaha suuqi baad wareegaysaan waxaad rabtaan baad qabsataan ganacsiyadii baad ku jirtaan yaa guri idinku xidha markaad caalamka aragteen maxaad la dhiganaysaa maxaa idinkaga xidhxidhan maqaawanidii baad u malaysaan ilbaxnimo kala wallah ma aan ilbaxnimo kaa maanta ku leh gabadha xuriyadeedii weeyaan beri gadaashaadu kaa caayaya waa malcuun lagu soo diro shaytaana weeyaan ma aha ku ka karaamaynayo qabaa'isha Soomaaliyeed hanaga daayaan buunbuuninta magacyadooda qabiilka aan gabadha Soomaaliyeed lagu xifdinaynin hal iska daayo wallahi maalin walba waxaad aragtaa waxaad ku qaracmayso indhiyaada ceshan karin aan la yaabayso dadkii ummadda xagee u socdaan xagee loo socdaa mararka qaar waxaa ku qabanayso fayaa mawtu zur ina alxayaata damiimatun wayaa nafsu jiddii ina dahraki haazilu war ma naar baan ku soconnaa ma abwaabti jahannama rabnaa inaan ku daadano hadday raggi noo turi waayeen soo gabdho islaama ma nihin soo diin iyo kitaab qur-aan ma nihin baan ku dayaana gabdhaheeni saxaabiyaadka ahaa qur-aan ku ammaanay diintoodii meel la gaadhay maxay ku ammaanaayeen naamiyay isqaawin jireen ma dabaday ruuxayeen social media ma jidhkooda ay ice cream ku gadanayeen kallaa wallah cirdigoodii sharaftooda dhowrsanayd guryahoodayna joogeen waxay ahaayeen dad sharaf leh kalaamka allah bay sharaf ku yeesheen diintaasayna sharaf ka raadiyeen innaga sharafteena maxaan ka raadina tu dhaban soo dhigto
baraha bulshada tu gacmaha intay soo jooraysato soo dhigto baraha bulshada tu raangicun intay wajiga marsato isa soo dhigto iyo waxay noqotay mid ice cream jirkeeda ku galato iyo mid tiraada ilmihi aan garacsaday aan garacnimada ka ganacsanayay hala igu siiyo lacag xageenu soconnaa soo mawd nagama dambeeyo soo qabri nagama dambeeyo soo ilaahay ma aaminsanin ma waxaa rabnaa saan dembiga ay ugu jiro in nalaga qaado nafta soo dad islaam oo isu turaymanin maan iska qabana xumaatada ragga Soomaaliyeed gabdhahooda ma xumaatada ka qabtaan ku walba wuxuu sugi shaah fatwoolo oo masaajid ka soo hadlo oo dhaw waxa waa xaraan asagoo arkay inay xumo tahay buura gabadhoodii ka qabsanin bal qaarkood baa kugula dagaalamay markaad gabadha la hadasho ood u moodaa inaad aabihii hooyadii ka disho bal walaalayaal way dhiigi raganimadii ma waxay ku hadhay inay ilmo la dhalo raganimadii ma waxay ku hadhay inay kuraasta lagu dagaalamo mataas raganimadii ku hadha mad gabdhihiina cirdigooda ilaashataan gabdhaha waxay idin sheegayaan daayarta soo kahado cid idin maqan ma jirto intaad ilaahay ka yaabtaan kitaabka qur-aanka qabsada wa xablullaahi almatiin qof kastoo qabsadana ma dayacmo waxaad ka dhigataan qudwadiini gabdhihii muslimaadka idinka horreeyey iska daya waxaad ka wadaan baraha bulshada ilaahay ka yaaba waa la dhiman qiyaamana xisaab bay leedahay anagu xisaabtanada waxaa weeye waad aragta xumaantay maxaad u qaban weydeen ilaahay waxaan ku makhraati gashanaynaa gabdhaha walaalahanaga waxay ku jiraan inay macsi tahay inaan u sheegna ilaahay intaasaan ku makhraati gashanaynaa awood kale ma haysano laakiin intii mas-uulka ka ahay taa ogaato aakhara inaynan la dhaafeen ilaahay subxaana watacaala hortiisa ayagoon lagu weydiinin oona lagu xisaabin naftaydii naftiinaba waxaan u dardaarmaya cabsida allah subxaana watacaala qof walbo allah ka cabsado xumaanaha kuma dhaco wuu ka dhowrsadaa wuuna ka ilaashadaa aan allah ka wada cabsano aana qudwadeenna ka dhigano dadkii salafuna saalix ee naga horreeyey gabdhihii wan wanaagsanaa aan ku dayanno raggii wan wanaagsanaa ee dumarkooda u dhiidhiyi jiray aan ku dayanno